بسم الله الرحمن الرحيم السياسة دغن cusub ee la furay ee faraha badan ay isbarbar ordiya waxa loo baahan yahay rag aqoon-yahana oo isbedel keeni kara markaan saaw eegay anigu waxaan isleeyahay waxa ugu macquulsan ninka laho Professor Ismaaciil Samatar waa nin aqoon-yahana waa nin wax badan soo shaqeeyay waa nin wax waaya araga waa nin soo kara maanta wax badan uu ka bedeli karaa wadciga wadanka ku sugan yahay marka ninkaas aan taageersan hadaan dhahay bulshada gobolka Togdheer ururka ugu macquulsan anigu kulli raayahantayda aan ka hadlayo ugu macquulsan Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo nin aqoon-yahana oo nin weyn oo araga oo nin wadanka wadi kara anigu ururkaas aan taageersan ururada la furay shakhsi ahaanteeda waxaan u arkaa xusbigu urur ugu muhiimsan inuu yahay ururka Hilaac maadaama wato aqoon-yahan cilmi badan u leh siyaasadda ama qarankan hogaamin karaya maadaama in badan dadku ay soo jireen qabyaalada inay wax ku doortaan ama urur ku doortaan shakhsi ahaan waxaan aaminsanahay in ururka Hilaac inuu yahay kii ugu fiicnaa ee sanadkan hogaamin kari lahaa wadanka isagana soo dhaweyn way soo dhaweynaa noo ku hadalna afka dhalinyarada maadaama la kala dooranayo urur siyaasadeedka anigu kulli raayahantayda waxaan wataa Ahmed Ismaaciil Samatar professorka gudoomiyaha ururka Hilaac insha Allah guul baan u rajeynayaa magacaygu waa Nasriin Xasan Caawid kana mid ah dhalinyarada gobolka Togdheer ma sha Allah maanta waxaan soo dhaweynaynaa ururkii dhalinyarada ee Hilaac oo uu ka gudoomiyahay Professor Ahmed Ismaaciil Samatar gudoomiye ku xigeenna uu ka yahay Marwa Muna Bila Xirsi ciid ma sha Allah waan ku faraxsanahay ururka inuu gobolka soo gaadho inuu ku soo dhawaado maadaama ururkan aan anigu ku doornay haddaan nahay dhalinyarada gobolka Togdheer urur rajo badan anaga noole ayaan u aragnay ma sha Allah waan soo dhaweynaynaa waxyaalo badan waan ku garab taaganahay intii karaamkayga iyagana waxaan ka rajaynaynaa inay sidaas la mid ah ay shaqayn wanaagsan dhex marto oo billahi tawfiiq mid kamid ah dhalinyarta ku xidhan ama taageersan ama sida weyn soo dhaweynaya ururka Hilaac ama xisbiga Hilaac aan ilaahdo waxyaabaha xisbiga ku doortay ama aan ku doortay aan taageero waxa kamid ah in la helo Soomaaliland loo leeyahay salahan xisbiga waxa laga leeyahay gobolada darafyada laga leeyahay burco gobolada bariga ah iyo gobolada kala duwan wadada ku jira marka si loo helo Soomaaliland loo leeyahay oo kaamila ayaan xisbiga taageero talabaad xisbiga taageero waxa weeyaan waxa qanciyay habka uu shaqeynayo maamulkiisa iyo sidoo kale collective violations bulsho isku xiran buu hayaa waxyaabaha saddexaad ee xisbiga qanciyo waxa kamid ah xisbiga oo la ajandayaal muuqda iyo sidoo kale la iyo hadafyo cadaan oo kale gobolada oo dhan sinaan cadaalad waxa soo dhamaan anigu urur siyaasadeed la furay waxaan u arkaa marka hore waxaan u arkaa caadi laakiin waxaan ka jecelahay in uu Muuse Bixi Cabdi inoo hayo madaxweynuhu inoo hayo 2 sano waxaan sababaynayo duruufaha jira awadood maxaa kamid ah sixir bararku abaara baahsan oo saameyn xun inagu reebay waa 2 qodob soo maaha laakiin haddii laga fursan waayay oo ururadii la furay kaliya waxaan ka taageeray ururka Hilaac marka waxaan ku sababayn lahaa maxay tahay urur siyaasadeedkan maxay hayto Ahmed Ismaaciil Samatar oo maxay tahay gudoomiyaha ka ururka Hilaac aad iyo aad baan u taageeray sababtan ku taageeray waa maxay qaybtii haweenka ayuu soo saaray maxay tahay garabka haweenka ay ka tahay Muna Bila ay ka tahay gudoomiyaha way dumarkii la soo saaray xaqoodu aastaa marka kaas xusbigaana aad baan u taageeray dadka ayaa u baahan oo isbedel u baahan markaas in ururada la furo oo dadku ay kala soo baxaan cidii ay markaa u arkaan dalka iyo dadka midna ugu jirto ayaan anigu doonaynaa wayna furayeen oo hawshu way socotaa ku doorto waxay tahay inay aqoon-yahana wata oo asaasay dalka iyo dadkana aqoon u leh dadkana mustaqbalkooda iyo dhalinyarada inuu wax la qabto diyaar u ah marka sababahan ku doorto waxa kamid ah inuu yahay nin aqoon-yahana dadka iyo dalkaba fahmaya aan ahayn qof iska soo kacay waxan uu ku socdo iyo meesha uu socdo garanaya dadkana wuxuu qabanaysaa sababtaas uu doortay bulshooyinta gobolka Togdheer waxaan si weyn ugu yeemaysaa loo soo dhaweynaa ururka Hilaac insha Allah wala shaqeynaa waxaan ururkaygii magaalada cidi kaamalaha magaalada magaaladaadii waan kugu soo dhaweynaa